stuudiga waxaa la fadhiya Cabdiqaadir Cali Jaamac oo loo yaqaan qalab xoor oo horey u ahaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Galmudug isla markaana dabcan maamulkiisu uu ka qayb galay shirkii ka dhacay magaalada Nairobi waa maxay adiga aragtida aad ka qabto natiijada shirkaas qalab xoor marka hore horta ku mahad celinaya casuumadan Ridwaan marka labaadna ummadda Soomaaliyeed Ilaahay waxaan uga baryayaa inay horta midoobaan ilaahayna oo mabaadi midaysan oo wanaagsan ay ku heshiiyaan ilaahay inuu waafajiyo ama shirkaas waxaan u arkaa in uu guul bilowgeed u yahay Soomaalida shirkani wuxuu ahaa wada tashi ma ahayn wax go'aana wada tashigaas dadkii ama United Nations oo ah dadkii maalgeliyay dhisitaankii dawladda Soomaalida ayaa shirkaas qabtay sababta ay u qabteen waxa weeye shirkii dawladdii Soomaaliyeed xilligeedii ayaa sii gabaabsanaya marka shirka ma waxa leedahay wuxuu ahaa midnimo Soomaaliyeed lagu raadinayo ama lagaga tashanayo waxaan u isleeyahay shirku dawladdii Soomaaliyeed ee United Nations ay soo dhiseen waxa ka dhiman August haddii xilliga la gaaro maxaa ka dambeyn halkaas ayaa saldhigga shirku ahaa yaa kala tashateen laakiin maamul ahaan maadaama dawladda ku meel gaarka aad xiriir la leedihiin ama aad hoos timaadaan dastuurka marka la eego okay shirka afar hay'adood baa laga casuumay laba hay'adood si buuxday u tagtay Galmudug si buuxda ayay shirka u tageen Puntland si buuxda ayay u tagtay Sunna Warjaa oo kala qaybsanayeen dawladda lafteedu oo kala qaybsanayeen marka waxa weeye Soomaalida dhibkan haysta waxa weeye waliba Soomaali kaliya Afrikaanka oo dhan haddii qofkii kursi ku fariista wuxuu u haysanayaa kursiga inuu leeyahay xal awoogi inuu yahay xilligii dawladdan la doortay wuu dhamaaday Soomaali in loo bandhigo leeyahay xilligii wuu dhamaaday kursigii hadii cidii maarta Soomaali hogaamin lahayd dadka shirka ka qayb galay waxa leedahay waxay bedelayaan xilalka hadda dawladda ku meel gaarka ama mustaqbalka dawladda iman doonta waxay xaq u leeyihiin inay ra'yigooda ka soo jeediyaan waxa bedeli doona markii la gaaro August oo xilliga dawladdu ay dhamaato marka aniga waxaan u arkaa in Soomaalidu ay iska iyo waliba inta waxa hadda ka socda maartay Afrika oo dhan inay iska daayaan inay sugaan ilaa inta qoorta laga qabanayo oo qofku hadii shacabku uu arko inuu yahay qof wanaagsan dib ay u dooranayaan xilliga markii la gaaro doorasho isgeey laakiin sooma wanaagsaneen sida dad badan ay qabaan in xataa hadii qaramada midoobay ay shirka dhexdhexaadinayso in lagu qabto Soomaaliya gudaheeda si loo yareeyo khilaafka iyo dabcan isfaham darrada u dhaxaysa Soomaalida waa sax shirkan horta wuxuu ahaa kii u horeeyay ee wada tashiga ahaa ka dambana in lagu qabto Soomaaliya wax diidan lama arko Galmudug casuumaad bay fidisay waxaana diyaar u tahay inay marti geliso shirka Soomaalida maadaama ay ku taalo meel maxay ahayto Central Soomaaliya amnigeedina uu yahay meel maxay ahayto aad iyo aad u wanaagsan markii loo eego dhulka kale oo Soomaalida anigu waxaan leeyahay xilligii dawladdu waa dhamaaday dawladdana sidaan wada ognahay waxa dhisay nimanka shirka qabtay baa hore u dhisay ayaga hadda waardiyeeya marka ma in iyaga war laga sugaa rabtaa adiga oo waxa ay sheegaan ama go'aanada ama shirarka ay qabanayaan markasta Soomaalidu ay daba galaan anigu waxaan is leeyahay Soomaalidu horta waxa hadda jira go'aanba kuma leh nin la waardiyeeyo oo asaga amnigiisa la waardiyeenayo oo taangi lagu waardiyeeyo oo dariiq in yar lagu waardiyeeya go'aanka uu qaadan kara kaliya muxuu yahay iskuma filna dawladdu shalay waa la dhisay haddana waxa la rabaa in la yiraahdo war wax dhista anigu waxaan aaminsanahay marka inaysan sugin inta maxay ahayto sida dhacday horena u dhacday inta ay meel xun bahasho ay sagaarin oo la oran waa saaka kursiga laakiin inay inta Soomaali hadii ay wanaagsan yihiin dib loo dooranaya Soomaaliya dhex tagaan xilliga markii la gaaro anigu waxay taas inay ummadda Soomaaliyeed ugu jirto qof kasta oo Soomaaliyan uu xaq u leeyahay inuu ayaha wadankiisa tala ka dhiibto laakiin dhinaca kale markaan ka eegno maamulada ka qayb galay oo Galmudug ay kamid tahay ma isleedahay shirkaas inay ka qayb galaan iyadoo khilaaf dawladda ku meel gaarka uu taagan yahay dadweynaha Soomaaliyeed la dhihi kara intooda badan shirkaas taban way ka soo horjeedaan inaad ku dhiirataan inaad ka qayb gashaan aniga waxay la tahay fursad bay u ahayd Galmudug inay codkeeda ka dhiibato ayaha Soomaaliya dawladduna sidaad la socotid golihii sharci dejintu way tageen
laakiin golihii fulinta ayaa meesha ka maqnaa ayaguna sababta uga maqnaadeen waa dareemi karnaayo waxay ogyihiin waxaa laga hadli doonaa inay yihiin kursiga ayagu ay ku fadhiyaan marka taasi waxay kugu cadaynaysaa inaysan ayagu dee dowladdan waxaa leedahay waqtigeeda markuu dhammaado waxaa loo baahan yahay dad bedela dowladdan markay dhammaato waxaa loo baahan yahay in Soomaali ay wax doorato oo xilligii dowladdu waa dhammaaday miiska in la wada fadhiisto cidii loo arkay inay ummadda maartay ay hogaamin karto in la doorto markaas sida la socotid waxyaabaha ay qabanayso hadda xukuumadda oo kale ma lagu amaani karaa ay kula tahay maadaama marar badan aad ka dhawaajisay in dowladda wax qabadkeedii aad mudid inuu liito okay aridan dowladdu haddii ay rabto inay wax qabato oo ay daacad ka tahay inay wax qabato waxa way qaban kartay laakiin waxaan ku sheegayaa baarlamaanku waxa weeye 550 weeye dowladda markii la isku dardaro oo ilaa iyo xoghaynta agaasimayaal markii la isku daro 50 kama yaraadaan 600 halka ma tahay 600 oo dowladda ka tirsan haddii nin waliba uu 10 askari keeno oo daacad u ah 6,000 askari bay haystaan markaas 6,000 askari iyo 8,000 amisom markii la isku daro waa 14,000 waxa weeye oo ciidan ah intaas dalka ma xoreyn kartaa mise ma xoreyn karto way xoreyn kartaa laakiin waxa weeye inta meesha ku jirta ayaan daacad ka ahayn oo dagaalka laftigiisa qolada dhinaca bay u jirtaan qolada dhinaca bay u jirtaan inta dowladda wada sheeganaya waa tahay aad baa u mahadsan tahay dabcan daawadayaasha meel kastoo ay joogaan khadadka taleefanada ayay barnaamijka uga qayb geli karaan oo fursad aan u siinaynaa in laf ahaantooda ay dhiibtaan aragtidooda ku wajahan natiijada shirka iyo sida ay ugu kala qaybsan yihiin dadka Soomaaliyeed gaar ahaan aan eego khadadka haddii aan dib ugu noqdo Cabdiqaadir Cali Jaamac dabcan Soomaalidu waxaad moodaa in colaad ama isfaham darro ama heshiis weli u dhaxeeya oo siyaasadeed inaanu jirin iyadoo laga yaabo inay waxyaabo fara badan ay heshiis ka yihiin ama ay dabcan ay mararka qaarkood ay la dhihi karo waxyaabo aan isku khilaafsanayn laakiin siyaasadda waxaad moodaa inay ku kala qaybsan yihiin sidee xal siyaasadeed loo heli karaa oo dadka Soomaalida u dhaxeeya oo Soomaaliya weliba maaragtay ka dhaca horta aniga waxay la tahay Soomaaliya wadaniyadii baa ka dhamaatay qofkii wadaniga ahaa ayaa horta ku yaraaday kama dhamaanin wuu ku yaraaday qof kasta waxaa moodaa in uu ka hormarinayo wax walba danta asaga khaaska u ah Soomaaliya waxaa la rabaa horta inay marka hore ay yeelato isfaham guud oo ku salaysan danta guud ee Soomaalinimada ah waxay la tahay Soomaalinimo haddii la raadiyo khilaaf oo dhan halkaas ku dhamaanaya qof kasta oo Soomaaliya oo markaa ama jago ama ka hortaagan dadka Soomaalida inay Soomaalinimo raadiyaan haddii aan dib kugu celiyo anigu waxay la tahay waxba waqti bay leeyihiin adduunyadan hadda hore u martay burbur iyo baaba hore u soo maray maantana heerka ay joogaan waan u jeednaayo de heerarka ay marayaan waxaan qabaa Soomaaliya dhibaatada haysata way ka bixi doontaa xilli dhow laakiin wax wala waqti bay leeyihiin wadani Soomaaliyeed markaan helno oo qof wadanihi ummadda u soo baxo sida hadda maalinba haddii nin u yimaado waxaa laga yaabaa maalin dambe inuu soo baxo nin ummadda guul u horseeda oo wadani ah oo dantiisa ka hormariya danta guud أنا waxaan arkaa markaas baa waxa la heli doonaa in maartay Soomaaliya ilaahay sida uu dhaamay sida hadda ay tahay waxa moodaa hadda banooni Soomaaliya banooni inay noqotay waa lagu ciyaarayaa dadka Soomaalida Soomaaliya gudaheeda ma ku wada hadli karaan bay kula tahay dabcan sida dad badan ay qabaana waxay leeyihiin dadka Soomaalidu inay wada hadlaan ayaa u haboon oo gudaha Soomaaliyana uu ka dhaco wixii shira ama wixii wada tashi ah ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya arrintaas suuragal ma tahay xilligan ay kula tahay waa ila tahay in suurtagal weeye Soomaaliya Soomaali baa leh wixii ayaheeda looga tashanayana waxaan aaminsanahay inuu ka dhaco Soomaaliya maxaa marka shirka Kenya looga qayb galay kaasi wuxuu ahaa horudhac ah wada tashi koowaad weeye kama soo baxay ra'yiga hadda ah aragtida Amiin Caamir markaan eegno waxa uu leeyahay isagaaba sahlanba oo wada tashi ah oo aan waxba lagu qaybsanayn oo gudaha Soomaaliya lagu qaban karaa
marka la eegana dee dabcan uu ka fudud yahay shir dib u heshiisiin ama shir awood qaybsi ah marka ma kuu muuqdaa in shirka kale Soomaaliya gudaheeda lagu qaban doono anigu saas ay muuqataa waxay la muuqataa anagu galmudug codsi bay qortay dhiibtay oo ay leedahay waxaan marti galinaynaa shirka diyaar baan ahay inaan marti galino amniga iyagana waa wanaagsan yahay amni lagu ilaahay looga shukriyo lagu faani karo ma oranayo ilaahay looga shukriyo ayaa deegaanku leeyahay marka waxaan aaminsanahay in uu shirka gudaha lagu qabtaa uu ka faa'iido badnaan doono mid kuwa dibadaha lagu qaban doono waa tahay aad baa u mahadsan tahay aan mar kale dib u eego haddii ay soo arrin khaldan wel gabar horta fikirkeeda xaq bay u leedahay inay soo jeediso dad badan baa la qaba la socota Soomaali ah anagu waxaan aaminsanahay inay laga maarmaan tahay muhiimna ay tahay in ayaha Soomaaliya maamulada jira hadda inay ra'yi ku leeyihiin arintaasna uma arka anigu inay maaragtay wax dhibaato Soomaaliya u keenay ay tahay laakiin waxaan u arkaa inay tahay wax badbaado u ah isla markaasna wax hadda meesha looga hadlay waa ra'yi ururin weeye uma arka dhibaato inay tahay in la yiraahdo xukunkiina wuu dhacay baarlamaan iyo dawladba miiska iskeena doorashada dhibaato ma arko aad baa u mahadsan tahay oo khadka taleefanka mar kale dib ugu noqdo hello ra'yiga Soomaalida uu ka mid yahay qofna wuxuu qabaa shirka inuu xaq ahaa qofna wuxuu qabaa inuu xaq darro ahaa waxay ka badan dadka shirka u arkay inuu ahaa mid xaq darro ah waxaan jeclaan lahaa horta in Soomaalida ay ogaadaan horta dawladani yaa dhisay awoodeedu si meeqay la eg tahay dalkii dawlad baa ka jirta magac bay uga jirtaa inta ay joogtana waan wada ognahay marka waa lagu qasban yahay leedahay shirka in laga qayb galo marka shirka in laga qayb galo oo ra'yi in la sameeyo dawladii ilaa maalintii la soo dhisay waxay dhaafi laadahay intii yarka ahayd leenka yarka bay dhaafi laadahay waana ku sheegay sababta dawladdu ay leenkaas u dhaafi laadahay daacadnimo dhexdeeda ayaan jirin 14,000 oo askari ayaa tusaale kugu soo qaaday 6,000 oo kamida miyay keeni waayeen nimanka dawladda ku jira oo daacad u ah haddii ninkii aan keeni waayey 10 askari ninkii keeni waaya dee ha yidhahdaan aniga xilka ma qaadi kartee nin 10 askari keeni kara daacad ah oo dalka iyo